gacanta inta taalo shantaas gacan ay ku timaadaa baakadkii وانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال هل كان ودعاء ميديا جنال صاحب ما انتو حنجع لستينا إن الوداغو برنامج ير وأنا ربا جالنجي إنا كسمايا أما أنت جابيو تصي أما أنكو سمايو مشان حتى له قدو وحان ربا إنا استعماله قاب كشينيسكا سو جيدين ماشي قاندا يسارا إيو لبا قوري oo labadii qori ee shiineeska hunguriga ku cunaan ama u ah sida booska qaandado kale oo ugu jiro labaas qori rabaa inaa baroobeeyo qoryahana sa u jeedaan toos shiinaha igaga yimideen magacoodana noocaas la dhahaa sana u jeediyay kaamirada Newar allaha bukuskaas 10 xabo ku jiro waa hal darsan midkaas araba inaa tastagareeyo aan ku cuno macnaha meesha aan qaadada ku cun lahaay waa badala waxa ku cunaa labadaas qori waxa raba inaa fiiriyo aan inaa ku cuni kara raba inaa tijaabiyo ila socod wanaagsan asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal halkan waa duca media channel sida nooga barateen waxaan soo geli jirnay meeshaan waxbarasho ku saabsan gawaarida laakiin ani waxaan jeclahay wax walba oo ugu cusub inaan soo geliyo sideeda si ay aan wax ugu faa'iido dadkana wax ugu faa'iidaan maanta waxaan rabaa inaan idin baro ama aan tastagareeyo ama tijaabo aan ku sameeyo afshiinas wax lagu yaqaan ma aqaano laakiin tusaale ahaan haddii aan ka bixiyo waa taqaaniin inta badan shiinaha farkeeto ama macalgo ama qaanto wax laguma cuno waxa lagu cunaa laba qori oo dhaadheer maantana waxaan helay labadan qori aan rabaa inaan ku tastagareeyo raashin inaan ku cuni karo in kale inaan fiiriyo waana challenge aan rabo dadkii kale helayo inay ayagana sameeyaan maadaama waxaan rajaynayaa in leegaga fiicnaa doono waliba si khaas waxaan jeclahay haddii uu gaaro videogaygan in walaalkay Asad Xaajiyo oo asigoo kale soo sameeyo challenge ka sameeyo laakiin aniga tastiya raba hadda inaan ka sameeyo aan baroobeeyo inaan sameey karo ka bixi karo waxaan jeclahay marka inaan guda galo ama aan idin tuso horta labadan xabo waa kuwana sa u jeedaan baakadkan dhan ayaga ku jiro waxaynu ku yimaadaan set ama 10 xabo ku yimaadaan sa u jeedaan laba gacan loogu talagalay mid kala ku jirto afwan oo soo dhex tagay sa u jeedaan koow gacan laba gacan saddex gacan afar gacan iyo gacanta inta taalo shantaas gacan ay ku timaadaa baakadkii waana set saas ku yihiin 10 xabo waay sidii ku yihiin insha Allah meesha waxa ku soo diyaariyay takeaway oo raashin yar ku jiro baaquligan waxa ku soo diyaarsaday sababtoo laba qori waaye saxan fidsan ma loogu talagalin shay godan ah loogu talagalay in lagu shubo qaadadan waxa uu soo keestay in aan barbardhig ku sameeyo qaandada iyo labada qori waa ogahay aniga waxa ii fudud qaandada sababtoo qaando waa aqaana qaabka wax loogu cuno laakiin qoryahan maanta ugu horeyso ma aqaano qaabka wax loogu cuno kaliya waxaan ka daawadaa videoyada iyo waxaas ka daawadaa waxaan rabaa marka meeshaan waxa noogu jiro raashin sadreemayo hadda furaa kadib baaquligan ku shubaa kadib waxa ka sameynaa waxaan baroobeynaa qaandada oo ku tusaa qaandada sida ugu cuni karo ay dadka dhan ugu cuni karaan ugu fudud kadib waxaan qaandada iska dhigaa waxaan baroobeynaa hadine qoryahaas ma ku cuni karaa horta inta badan shiineeska markay cunayaan markay shiineeska raashin ka cunayaan horta waxay ugu badan yihiin ee ku cunaan oo aad ay ugu jecel yihiin baasto oo dhacaan badan wadato inta badan sida Soomaalida kale ma aha ayaga shiineeska waxay ku cunaan dhacaan badan maraqooda aad u dhacaan badan u leeyahay oo maraq cad waaye kadib waxay sameeyaan baastada marka ma ku duuban ayaga labada qoras loo gelinaa star loogu qaadaa kadib asaga qofka af ku sii jinaa waxa kale jiro raashinka markay cunaan dhulka ma dhigaan saxanka waa la qaadaa ama baaquliga waa la qaadaa waxa loo dhaweeyaa faruurta waxay ugu tala galeen faruurta iyo saxanka way is saareen dhag in lagu siiyo aniga sidoo kale sameyn doonaa oo raashinka ina meesha ka soo qaado ma keeni karo waxa kale oo diyaariyay maanta waa waayay baasta rabeen tastiga ku sameeyo maadaama waqtiga 7 saac bar uu yahay
bariis baa helay bariiskaasaa rabaa inaan ku tijaabiyo iyo baasta gaagaaban aan isku dhex jirto labadaasaa rabaa inaan ku tijaabiyo aan isku dayo inaan ku sameeyo hadday ii suurto gasho oo ii hirgasho oon sameeyo waa sidaa rabay maasha allah hadday ii suurtogeli weyso waxaan jeclahay dadka soomaaliyeed qofkiiba awoodo oo helaayo inuu ayagana ay soo sameeyaan hadday igaga fiican yihiinna aan u arko waan tijaabiskaan bilaabi doonaa ila socod wanaagsan waxaan furaynaa baakadkan ama takeawayga insha allah بسم الله ما شاء الله سأوجدان وحكجرة بس جاجابن يبريس بقول أنا وحأوكست وحربها إن أنكو جديو صوته كان ويقول بدني هاي ملوكوني كرام لكن كان بقول له إيسهلا إن أكو هنا حسمينا مركا وحنسكديها inaan inta ku gidiyo si aan tastiga u bilaabo bismillaah saa u jeedaan waxaan rabaa inaan waa ka gidiyey qaandadan xaggaas ka dhigaa bismillaah aaday igu dhib badnaa doontaa sababtoo ee bariis si loogu qabto mashiinka kargeedan waxay ku qurux badnaa lahayd inay baasta ahaato baasta hadday ahaa lahayd way ii sahli lahayd dadkane waxay iga sugayaan waa inaan labada qori ku qabtaa labada qorina saa ujeedo ilaa ujeedo in lagu qaban kara ma ahee horta waxaan tijaabinaynaa qaanto aslan wada naqaanaa oo way sahlan tahay ciid in lagu cuno oo ma dhib maka ka imaanayo bismillaah dhib maka imaanayo laakiin hadday rag rabtaa marka hadda ay rag rabtaa an tutusiiba horta bismillaah horta saanaan leedahay shiinasaa iska dhigaynaa bismillaah raxmaan raxiim بسم الله ياهو لما حب النظيفة بسم الله وراح مسوق ذوبه يا وركونا مارون ابو قولا به يا سلوق بها وحان يا دب ما هو كون هاي هل عباس السوق بتولا رجيده ايه واقنا بصاحبي لو خلاص ذاك يعني رجع اهي به قلت قاعد شو ذاك لك اوي بدك مسوقات ماي يا رفعت كاميرا والله ما سوقتي ما شاء الله هاي باسكر سوق يس بابا لا ورجلين قبو لا isku day wax kas isku dayid leewa maanta samee birno isku daya waxaan marka dambe aanu active soo dhigi doonaa maanta barasho ahay yes waa badala insha Allah birito video kala ka diyaarna oo baasto waxaan rajeynaa 100% inay fududaa doonto ee ka dib yaraa doonto maxaa la hayay bariiskan iyo macaronidan maanta waxaan jeclaystay inaan intaas nila wadaago saaxiibayaal insha Allah hadda kadibna wax walba cusub oo igu cusub waa la wadaagi doonaa ummadda Soomaaliyeed walaalahayga Soomaaliya qofkii igaga fiican oo isdhihi karo oo sameey karaane waxaan jeclaan lahay inuu video ka soo diyaariyo oo challenge-gan ka dhigo challenge publical oo dadka dhan ay sameey karaan maanta inta saa jeclaystay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh bye bye